maxaan uga jeedaa waxweeyaan aqoontu waa wuxuu aadanuhu kala dhaxlay waa irsigii bini aadamka waa dhaxaltooyadii aadamaha in taariikho beenoo reer Yurub ku dhex daray baa jirta oo ah European centric laga dhigay wax walba inuu Yurub ka soo baxay waa khuraafa waxba kama jiraan yes wax badan oo Yurub ku dartaa jirta laakiin wax walba inuu iyaga ka soo ifbaxay waa beenaha ugu waaweyn ee dunida la sheegay kamid imikana iyaga naqdinayo tilmaama beenihii ugu waaweynaa ee dunida la sheegay inay kamid tahay wax walba hebel baa soo saaray dan la isu sheegaa inta badan waa been waxba kama jiraan laakiin waxaan leenahay aqoontu waa dhaxalkii aadanaha reer nabi aadam wuxuu dhalay tajaaribtoodii ay wadeen oo la ururiyay weeyaan laakiin Yurub markay dunida gumaysatay ururintii ugu tirada badnayd bay samaysay ama si kalena u tilmaamay xatooyadii ugu badnaydna way sameeyeen dal ayay dhaxalto waxay dhaxal lahaayeen qoraal xadeen inay iibsadaan inay boobaan inay qaadaan inay qasab ku qaateen ka dhigeen ilaa haddana iyaga kaydka haystay ugu weyn dunida nooca ku saabsan si kastaba ha ahaato waxaan leenahay aqoontu waa dhaxalkii aadamaha reer nabi aadam cid walba in bay ku darto Greek in buu leeyay China in buu leeyay Hindidu in bay leeday حضارة الإسلامية إن آد وين بيلادي حضارة الغربية الجديدة إن بيلادي ولنا آدنه السدي بوصي كردينية إذا وارد حل آدمها كدحية وارد حل آدم وحيور دلوردن كدحية حينو بهاني مركا دحلك آدمها كدحية إنن كقادم وكو إنه كيد كأبوري كرنه laba waxaynu u baahanay inaynu yeelano aqli wax fikra oo dhaxalka aadanuhu ka tagay saafi ma wadaaha fihi dakhal saafi ma wadaaha wuxuu u baahan yahay aqligii shiili lahaa siiba qaybta art siiba qaybtaas يعني قيبت الساينتيفيك هي وحلاقة يابا إن بدنو كمدة قيب بدنو كمدة يعني حقائق دودي ولذلك لقما يابا إن أركتان وحبضا وأما ناجرال ساينسيس كمدة أما ماتماتيكس كمدة ولقا ورما ينينكي قري وحي ورميسنا لقما ورما وايو ما هريو انت بدن waxa uu qofku rumaysan yahay xaqaa'iqda cilmiga noocaasiya مثلا lagama yaabo مثلا algorithm wal khawarizmi in loo rajay Muhammad al-Khawarizmi baa soo saaray al-Khawarizmi magaciisa baa algorithm kan waa magaciisa laftiisa oo si xun loo isbeeliyay inuu muslim yahay inuu masiixiye ka arkimaysid xisaabta dhexdeeda الجبر مركز دغانيسو وانين مسلمان سو ساري لكن انه مسيحي انه مسلم يا الجبر ده كده حركي ميسي ماثماتيكال بروف فضيه شو عين كان انه يهود سو ساري انه هندي سو ساري كده حركي كري ميسي لكن اقوامها بني ادم كو اسكو غميستا ما اسكو هاغو واقونتا كله اي كسابسن كلجر كودن وهدينو كلجر كو قادنو سيدي فرانسيسكا iyo maxay ingiriiska u sharxaa oo aragan culture culture markuu yahay afka Jarmalka iyo thaqafadii Jarmalka alxadaara kullaha baa la yiraahdaa qaybteeda maadiga iyo qaybteeda thaqafiga marka la isku daro culture bay iyagu isku yiraahdaan laakiin marka timaado Fransiiska civilization ma la yiraahdaa Fransiiska ma qaani eray noocaas weeyaan marka la yimaado Faransiiska oo Ingiriiskuna ka sii dhambalmay civilization ka laba qaybood bay ka dhigaan oo qayb madaniya iyo qayb yani qayb thaqafiya iyo qayb material الحضاره الماديه هي ثقافه
أهلا مركز قيبت الثقافية social sciences أما سياسات هالنقطة أما أخلاق هالنقطة أما علم بالشهد وحدهم طبعا نوع دوني بحكي النقطة أما فن هالنقطة أما وحلالية وحاب بني آدم كقصاب سنة ناجر ساينس كاهيني وصوره معتقدات كبني آدم كوكل الرميسية هي المامية هدو دقالية هدو سياسية هدو علم بالشهد دمانتد ولذلك مركز برنا يسوحت برنا ثيوريز أركتيا كلا نوعه أركتي الرأسمالية أركتي الشيوعية أركتي الدينية أركتي فيلوسوفيكالي وحكى سوتشيدا ومدارس سكول اوف ثوتس كلا نوع ويان وهي معتقدات كل بني آدم بيكون صالحتي كاوحي نوبة هنا إنه يلا حس النقدية حس قرن كرم محا صوابة محا صوابة هين محا خطأ محا في عن ولا قادم كرم محا التجربة الصحيحة محا التجربة الصحيحة هين حنوبة هنا مركز inaynu diinteena si fiican u garan karno waxaan leenahay markaan soo koobo weedhatan aqoon-yahanka aan rabno waa inuu noqdo qof masterka cilmiga saxiixa ah ee ima kitaabullahi almaqru'a ama kitaabullahi almanduura qof kayd هايستا وين نقضى قفك وحنقدين كره كريتيكا سمين كره وين نقضى قف ومد توجيهين كره او كالجرال ريفوليوشن سمين كره لكن دبت waxay taagan tahay inaga markuu aqoon-yahankeenu gadaasha ka maro odayaasheena iyo jiilkeenu rabnay inaynu bedelo waxay dibtu taagan tahay markay aqoontu xagga dambe ka marto taxadiyaadka aynu leenahay sideedaba qofka bini aadamka challenges ba ka hor yimaada caqabado noloshu waa caqabado aqoon-yahanku hadduu aqoonta caloosha ka horumariyo aqoon-yahan maaha maxaan cunaa haddaad u noolaato hadday noqoto aqoontaydu maxay goysaa suuqa marketka maxaan ka gooya haddaanay aqoontu xishood iyo cilmi iyo wax qiimaynaynin waxay qiimaynaysaa uu noqdo si lacag lagu helaa walow badda ku dhacnay qiimo male markaa maaha aqoontii cultural revolution ka samaynaysa maaha hadday aqoontu noqoto aqoon-yahanku hadduu noqdo qof la iibsan karo sultadu iibsan karto dawladuhu laaluushi karaan oo iibsan karaan aqoon-yahan maaha hadduu aqoon-yahanku noqdo qof qabiilku iibsan karo toban oday intay ku yimaadaan yidhahdaan reerku saasuu damcay waa lagu iibsaday hadduu aqoon-yahanku noqon karo qof la bajin karo oo ama sultada jirtaa bajin karto baqagelin karto ama culture-ka bulshadu ay leedahay xun culture-ka san weyn ku baqageliyo wayna ixtiraamta ku baqageliyo ma laakiin culture-ka liita uu ku baqagelin karo aqoon-yahan maaha ama aqoon-yahankan rabnay wax bedelayay maaha sida uga dhiftayna haysata caalamka saddexaad waxa ka mid ah aqoon-yahan badan oo ay lahayd wuxuu noqday mid hungurigu wado ee aan aqoontu wadin aqoon-yahan badani wuxuu noqday mid aan ethics lahayn mid aan akhlaaqiyaad lahayn ee maxay xagga shilinku jira uun jira aqoon-yahan badani wuxuu noqday inagu dhaqankeena ka Soomaali ahaan ka umma Soomaaliya dhib daakhiliya baynu leenahay dhib gudeed iyo dhib khaarijiya bini aadam walibana labada dhibood buu leeyahay dhib daakhiliya aynu leenahay oo ah inaynu qabiil u qaybsannahay siyaasaddeenu waa qabiil mararka qaarkood waxaan is idhaahdaa axzaabta siyaasiga aynu leenahay maalan talow haddii ragga u taliya la kala bedelo reeruhuna soo ma kala guureen
haddii nimanka madaxda ka inta mid la qaado xisbiga kale la geeyo reerkuna waa uun xag kale ka soo wareegi lahaa waayo haddaynan ideology haddaynan waxaynu wax ku qiimaynayna rumaysanayna qof rumaysannahay ma aha inuu qofkani xun yahay anugu kama hadlayo laakiin waxa weeyaan haddaynu shakhsana qof daba soconno aynan mabaadi' daba socon yaa aragti qofka in la raaca wax xun maaha laakiin qofku waa inayn waxaan ku raacsanaya mabaadi' iyo aragti tahay laakiin hadday noqoto inaanu isku reernahay inaan ku daba socdo dee aqoon-yahana sheegana magac kale sheega markaa hadhow ha odhanin literate man baan ahay ama learned peoplekan ka mid ahay ama scholar baan ahay ama academic baan ahay ama intellectual baan ahay erayada tirada badan ee af ingiriisiga meesha laydinku sheego ha sheegan wax kale sheego min reer hebel aan ahay iska dheh odayadu saasay rumaysnaayeen waxaan inooma sheegtaan waa suldaan waa caaqil waa nin reer hebela reer hebel waxay ku go'aan buu ku go'aa khalaas isaga kamaba qasnayn marka horeba duubkiisuu sitay laakiin haddaad adigu aqoon sheegatay aqoontu waa inay wax soo kordhisaa waa ina cultural revolution samaysaa waa in bulshada aan bedeli karnaa taxadiyaad khaarijiya jira oo ah tajhiil ulumma umamka si aad u gumayso si loo gumaysto waa in aqoon darro lagu hayaa umamka si loo gumaysto waa in la tajwiiciyaa hadday madaxa yaro taagaan waa in la gaajaysiiyaa cunaqabatayn dhaqaalaha waddanka lagu soo rogay waxan baa lagu soo rogay umamka si loo gumaysto waa in la bajiyaa waa in la baqogeliyaa haddaad saa yeeli weydaan briskaa laydinka jaraya waxbaa laydinka jaraya unka laydinka iibin maayo waa laydin cunaqabataynayaa duwalilmaariqa baad ku biiraysa dowladaha shaydaanka ah rag baa qaanuunka iyo xoogga iyo waxa uu dhistay oo ku talagalay inay hayaan si iyagu rabaan inay wax u sawiraan laakiin anigu waxaan rabaa inaan xor ahaado meel laga xoroobana caqligaa ugu fiican marka koowaad caloosha inaad ka xorowda inaad caqliga ka xorowdaabaa ka roon markaad caqliga ka xorowdaabaad calooshana ka xoroobi kartaa waxaan u baahannahay markaa taxadiyaadka khaarijiga ama challengeska dabadda ka imanaya inaan ka xorowno challengeska dabadda ka imanaya waagii hore duwal baa wax gumaysan jiray oo xoog ku qabsan jiray imika iyo dubuun waa sida quraanjada hadda u socdaan quraanjadu maxay way tamar yartay laakiin xagee ka soo baxdaa meel kastoo jeexan unbay fudh ka soo odhanaysaa haddaan iska gufaynin bulshada tasaduceeda bulshadu hadday burburto quraanjo dhan baa ka soo dhex baxda bulshada Soomaaliyeed way burburtay culturally bay burburtay dawladnimay burburtay dhaqan baa burburay diin baa xataa burburay dadnimadeedii baa burburtay dhaqaalaheedii baa burburay wax kasta ay soo qaadatay way burburtay dadkii dabadda ka ahaana way ka soo dhex tooseen maalin walba seminar yar iyo capacity building baa laynoo wada soo capacity-ga numa dhismo ilaa ka inoogu sarreeya baarlamaan baad maqlaysaa laleeyahay capacity building baa loo samaynaya kuwa academiga capacity building loo samaynaya waxna la inooma sheego waxaynu noqonnay inta laynaga dhex toosay ee dawla taxta dilli baa talisa dawladda hooska waxay yidhaahdaan waxaa laga yaabaa wasaaradaheenoo dhammi NGO-ya hoosta kaga naban iyagu masruufa waa bulshadeenoo dhan maca tujaarteenna maca waxeenoo dhan balaayo kale hoosta kaga mudan oo dhaqaale ahaan ku hoggaamiya waxaynu noqonnay dad keenada loo hayo keenada soo ma taqaanin awrka dee xadhigga marka lagu xidho keenada la xidho ee loo faruur xidho waa la wadaa uun hadduu madaxa yaro gijiyana faruur xidh baa loogu daraa maca faruur xidhka aynugu xidhan idan ayuha alaxiba waxaad tiin da'yartii akademiga ahayd ee wax baranaysa ee jaamacaadka joogtay
waxaan ka rabaa waxa weeyaan inaad kayd aqooneed samaysaan aqoon kayda inaad samaysaan waxaan kaloo idinka rabaa inaa xis naqdiya yeela xis naqdiya macnaheedu waa maxay waa inaad xorowdo inaan maanka laydinka degin oo laydinka gumaysan inaad xor noqotaan intaa markaa yeelataan waxaa awood u yeelanaysaan inaynu bulshadeenna bedello bulshada dadka ugu badan ee bedeli karaana waa aqoon-yahan hadduu aqoon-yahanku yahay mid qandiilka toojka midu sida ummadda hadduu noqdo aqoon-yahanku waa qof dadka u ifinaya jidkay mari lahaayeen aqoon-yahanku waa mid dadka u ilaalinaya kaljarkooda wixii san iyo dhaqan iyo diin ay leeyihiin ilaalinaya oo ka ilaalinaya in cid kale soo gasho aqoon-yahanku waa mid isku dayaya ummaddu waxa xun ay haysato mid duminaya hadday qabiiltay hadday mukhadaraad tahay hadday dhaqan xumo kala tahay hadday ammaano darro tahay waxa allaaliya waxa bulshada inay horumarto kor u ruqaansato u diidaya waa qofkii ka hufi lahaa macnaheedu waxa weeyaan waa inuu isagu markaa noqdaa qof nadiif ilaahay muxuu yidhi dadka masamaha faraysaan idinkuna maxay samayn maysaan maxaa loogu gebagabeeyey afalaa tacqiluun maanta miyadan isticmaalayn baa ilaahay leeyahy aqoontu waa inay wax beddel samaysaa aqoontu waa inaanay noqonin in meel durugsan laynaga hago tusaalaan ku siinaya dadka maanta dunida haga waxay isku dayayaan waxa kale ka kaalay xataa dhadhankeenna inay hagaan tviyada soomaad arag kijan laga soo bandhigo kijan iyo ku taalo saa wax loo kariyo inoo sheegaysa maadana wuxuu haystaan karsan aqoon baa jira yani waxaa la rabaa dhadhankeenna xataa in laga dhigo dhadhan iyo New York laga xukumo maradaynu qaadanaynay xad baad marisay bal masaajidka gal nin weynoo tukanayo dabadu muuqataad arkaysaa oo masalaada saxaysaa يعني والسروالك سيلا إنه قصة لا إنه أقبل لي إنه نقاضنه حنو بهنا إنه نحرونه حر نمضو ما هب بقعة الدولة وبنان وأصلح فرد دولة ذي حرب من الدولة هبلايا ما لا ما هطا حر نمضو هنا العقل جاكو حرية هي نولش واحد أدور ربطين الثمين كريسو وحان دني كوجرين إنه تكتجي كرتو ولو عندك لا يبوفين يسوى آخر ناس waxaan ku soo koobaya marka aqoon-yahanimo waan isku dayay inaan ku agwar wareego bal waxa ay sheegayso wax ka mid ah inaan tilmaamo waa ka inuu leenahay inuu tooj sido dadka uu ifinaya toojka wuxuu baana sidi kara qof garaadkiisa caqliyeedna uu xor yahay kayd aqoomeedna leh waxa uu sheegayaan ay ka runto noloshiisa ka muuqato inta haddaa heshaan adduunkana magacba kaga tegaysaan iyo maamuus aakhirana waa liibaanaysaan waana inta ay ambiyadu qaban jirtay iyo dadkii hormoodka u noqday umamkooda dhammaantood dadkii umamkooda hormoodka u noqday aqoon-yahanka u ahaa waa waxay sameeyeen innaga waxaa ina baylihiyey dadkaynu aqoon-yahankaynu daba soconnay aqoon-yahankeeni meel cidlaabu ina dhigay ka Soomaali ahaan waxa ina qaybiyey ina burburiyey xadka ina gaarsiiyey waa aqoon-yahankeeni waayo aqoontu sidaan noqonin tii iftiinka ahayd ee bulshada ifinaysay aqoon ku xoogsiya un bay noqotay ka ugu fiican isagu ku xoogsada oo wax ku kororsada laakiin dadka iyo bulshada iyo dadka aan midnaba waxtar u lahayn
aqoon xorriyad leh oo horumar keeni karta oo rabbigeedna rumaysan aakhiradeedana ka fakaraysa adduunkeedna dhisaysa ayaynu u baahanay صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين